السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياش هذا قيمة هي قدرين تمضني هذا سيتوس كان نقدر هنا ساي رمضان كريم هل كانوا وتلفزيون كأقرن كإثيوبيا كسر هذا وركي لانتاف كصوماليا أو ستوس أيدين كجاي من ساعة سابا وحنا يدين ورمية أنا جو حمدي محمود afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya Diina Mufti ayaa maanta warbaahinta u soo jeediyay mid kamid ah warbixinada joogtada ah ee wasaaraddu toddobaadkiiba laba jeer soo jeediso warbixintan maanta ayaa ahayd mid uu kaga hadlayay arrimaha ku saabsan diblomaasiyadda dhinaca siyaasadda iyadoo si gaar ahna diiradda loogu saarayay xaaladda gargaarka bini'aadantinimo ee deegaanka Tigray eedeymaha ku saabsan xadgudubka ka dhanka xuquuqda aadanaha ee laga sheegayo iyo waanta lala galayo biyo xidheenka webiga Abaay ee mashruuca biyo xidheenka dib u curashada dalkan Itoobiya webiga Abaay waxa kale oo lagaga hadlay khilaafka xuduudka ee u dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Suudaan diblomaasiyadda dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale wadahadallada dhismaha wadahadalka hawlaha diblomaasiyadeed ee muwaadiniinta la xidhiidha iyo kobcinta awoodda afayeenka oo arrimahani diblomaasiyadeed ka hadlayay ayaa si ballaaran uga hadlay in ay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Itoobiya mudane Damaqa Makonnen iyo sidoo kale wasiirka biyaha waraabka iyo tamarta Silashi Baqale ay safiirada u fadhiya dalalka caalamka Addis Ababa si ballaaran ay warbixin uga siiyeen wadahadallada la xidhiidha biyo xidheenka mashruuca weyn ee biyo xidheenka dib u curashada webiga Abaay iyo sidoo kale wadahadalladii ka dhacay Kinshan iyo waliba sidoo kale iyo arrimaha khilaafka ee xadkan Itoobiya iyo Suudaan madaxweynaha maxkamadda guud ee federaalka Marwo Maaza Ashanaafi ayaa sheegtay inay maxkamaddu u diyaar garowday xalinta cabashooyinka ay qabanayaan sida uu ku warramay wariyahayga Nimcaan Cusmaan doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay ayaa waxaa jiray cabashooyin badan oo loo gudbinayo maxkamadaha si haddaba loo xalliyo cabashooyinka ay qabaan ama se ka soo yeeri kara axsaabta siyaasadeed ee ku tartamaysa doorashada lixaad ee dalka ka dhici doonta ayaa waxaa la sameeyey qaybo hoos yimaada maxkamadda guud ee federaalka kuwaasi oo ka shaqaynaya xalinta cabashooyinka Marwo Maaza Ashanaafi madaxweynaha maxkamadda guud ee federaalka oo waraysigan siinaysay ETV ayaa waxa ay ku sheegtay in la aasaasay 26 qaybood oo kaliya loogu talagalay arrimaha la xiriira doorashada በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አንዳንድ ዳኞች ያሉበት 11 ችሎቶች በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደግሞ ሶስት ዳኞች ያሉት 10 ችሎቶች ተቋቁመዋል በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረጃም እንዲሁ ችሎት አካባቢ saddex maxkamadood oo hoos yimaada maxkamadda guud ee federaalka ayaa ay ku tilmaantay madaxweynuhu in ay go'aan ka soo saareen 11 kiis oo arrimaha doorashada la xidhiidha Maaza Ashanaafi madaxweynaha maxkamadda guud ee federaalka ayaa waxa ay tilmaantay in maxkamaduhu ay diyaar u yihiin in ay si xor ah go'aan uga gaadhaan isqabqabsiga ka dhalan kara doorashada madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii waxa ay tilmaantay in uu jiro bayaan laga diyaariyay arrimaha doorashada kaasi oo hor yaalla golaha doorashooyinka isla markaana marka la ansixiyo dhawaan dhaqan gali doona meelaha dhaqdhaqaaqa tartanka doorashooyinka laga mamnuucay meelaha hoos ku qoran lagama fulin karo ololaha doorashooyinka ee codbixiyaasha lagu soo jiidanayo masaajidada kaniisadaha xeryaha ciidamada militariga iyo saldhigyada booliska dugsiyada waxbarashada iyo nawaaxigooda marka geedi socodka barisbarasho uu ka socdo meel masaafadeedu ama fogaanshaheedu 100 mitir ka yar yahay meelaha shacabku ay wax kala iibsadaan miyiga iyo magaalooyinka maalmaha qaarkood marka kala iibsashada rasmigu ay socoto meel ka yar masaafo 100 mitir goobaha laga fulinayo shaqooyinka dawladda ama shacabka saacadaha shaqada ee rasmiga ah meelaha iyo goobaha ay ka socdaan shirar kale oo dadweyne وهاك داوديال ولي waxaad daawanaysaan wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka dhismaha jidka isku xidha Jigjiga iyo Harmukaale oo ka kooban 104.3 kiiloomitir ayaa maraya 30% sida uu ku waramaya markale wariyahayga Nimcaan Cusmaan
wakaaladda jidadka federaalka ee dalkani Ethiopia ayaa ku guda jirta dhismaha 30 mashruuc oo wadooyina kuwaasi oo laga hirgelinayo bariga dalka. mashaariicdani ayaa waxaa ka mid ah wadada isku xidhaysa Jigjiga iyo Harmukaale taasi oo dhererkeedu gaadhayo 104.3 kilomitir. jidkani ayaa waxa uu yahay mid xiriirin doona magaalooyinka Jigjiga iyo Djibouti. ይሄ መንገድ ቶታሊ በጣም የሚፈለግ መንገድ ነው። አሁን በንግድ ደረጃም ስናየው wadadani waa mid waxtar weyn leh ganacsiga ayaa ay u wanaagsan tahay. Jigjiga iyo Djibouti hadda ka hor waxa xiriirin jirtay oo loo mari jiray magaalada Harar 80 kilomitir ayaa ay hoos u dhigaysaa jidkii dheeraa ee la mari jiray. aagani maadaama uu yahay mid caan ku ah dhinaca beeraha waxa ka faa'iideysan karta bulsho badan oo beeraley ah. ነዳጅ ይጓጓዝበታል። ስለዚህ አንዱን ህብረተሰቡ በጣም የሚጠቅመው መንገድ ነው ብለናል። mashruucani ayaa hadda waxa gacanta ku haysa shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee lagu magacaabo CCECC taasi oo la rajaynayo in ay ku soo gabagabayso muddadii loogu talagalay. ፕሮጀክቱ 104.3 ኪሎሜትር ነው። mashruucani waxa uu ka kooban yahay 104.3 kilomitir. Jigjiga iyo Harmukaale ayaa isku xidhaya 30% ayaa hadda u maraya dhismihiisu. muddo sanad ka badan ayaa ay hawshani socotay. muddada mashruucani loogu talagalay waa 3 sanadood. kasakow shirkadda guud ee qandaraaska qaadatay waxa jira laba kale oo iyagana la siiyey 30 kilomitir in ay dhisaan ayaa uu yidhi Michael Asagid oo ah madaxa dhismaha mashruucani. ይሄን ብቻም አይደለም ሁለት ሰብ ኮንትራክተሮች inta haddaba uu dhismahani socday waxa sidoo kale halkaasi laga hirgeliyay 4 ceel oo noqon doona kuwa waxtar weyn bulshada u soo kordhiya isla markaana wax ka qabta baahida dhinaca biyaha ee goobahaasi ka jirta. Daawid Tigabu madaxa wakaaladda jidadka federaalka qaybteeda bariga dalka ayaa waxa uu sheegay in si wacan looga shaqeeyay dhismaha wadadani taasi oo dadajinaysa muddada lagu soo dhamaystirayo. si kastaba ha ahaatee mashruucani oo ay ku baxday 1.5 bilyan oo bir ayaa la rajaynayaa in lagu soo gabagabayn doono muddadii loogu talagalay. kusimaha duqa maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa sheegay in isbedelkii kadib uu magaalada Dhagaxbuur laga hirgeliyay mashaariico mugle. Maxamed Maxamuud ayaa warbixintan soo socota ka diyaariyay. maamulka magaalada Dhagaxbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka sida xawliga ah horumarkoodu ku talaabsanayo. haddaba maamulka magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolkaasi Jarar waxay ka mid tahay magaalooyinka kaalinta koobaad ka galay dhinaca deegaanka marka loo eego dhinaca qurxinta iyo horumarka magaalooyinku ay ku talaabsanayaan. waxaanay ka mid noqotay in ay mutaysato maalgelinta qurxinta magaalooyinka ee hay'adaha deeq-bixiyaasha ee heer caalami ay ku guuleysato in ay ka mid noqoto magaalooyinka ka faa'iideysanaya. kusimaha maayirka magaalada Dhagaxbuur Mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan ahna madaxa xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa nooga xog waramaya isbedelka kadib hawlihii iyo mashaariicii kala duwanaa ee ka hirgalay magaalada Dhagaxbuur. 2011 iyo 2012 shirkado shaqo abuur kala siiyay marka fundiga la yiraahdo lacagta xagga dawladda laga helo ay tahay sanadkii 2011 waxaan u sameynay 50 iyo 5 shirkadood baan u sameynay. 2012 kana waxaan u sameynay 61. hadda kiista 2013 kana uu socdaa. waxa inta dheer kii damaanad qaadka oo mar walba isagu socda oo aad u badan oo dadku aad uga faa'iideysanayaan ba isaguna halkiisa jira. marka waxyaalaha ay ka faa'iideysanayso waxa kamid ah shaqo abuurkaas kamid ah waxa kamid ah tacaddigii iyo dhibaatadii oo dadka mataqaana maanta ay dad mataqaana iskood xorriyad u helay oo mataqaana dadku ay maanta dad ay yihiin dad ka faa'iideysay isbedelka oo xorriyatul qowlka maanta iyo dhinac walba iyo iyagu ganacsatadu iskood u shaqaysanaya iyo taasi waagi hore ganacsiga laftiisa uu mataqaana xeernaa oo aftoobnaa la dhihi karo dad gaara oon la ogolayn inay bulshadu iskood u shaqaystaan. waxay noqotay Dhagaxbuur iyo deegaankuba meel nin walbaaba oo iskii u shaqaysanayo ganacsigii free market yahay. marka taas ay isbedelka keentay waan dhihi karaa waxyaalo badan in mataqaana magaaladii ay ganacsiga kordho in mataqaana waxyaalo fara badan oo mataqaana magaaladii ay ku guuleysatay ay ka mid tahay ganacsiga iyo adeegyada shacabka laftooda ay keenayaan mataqaana iyagu ay iskood u shaqaysanayaan hadday noqoto maalgelin iyo hadday noqoto ganacsi. mas-uulku waxaa kaloo sidoo kale uu nooga xog waramaya guud ahaan doorka ay ku guuleysatay iyo sida ay ugu guuleysatay
in ay magaalada Dhagaxbuur ay ka mid noqoto magaalooyinka ugu firfircoon dhinaca horumarka iyo waliba sida ay ku mutaysatay inay kaalinta wanaagsan ka gasho dhinaca horumarinta magaalooyinka. mar kale iyo kusimaha maayirka magaalada Dhagaxbuur Mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan ahna madaxa xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada Dhagaxbuur oo nooga waramaya arrintaasi. mataqaanaa mashruucii UIDP oo ay magaaladu ka faa'iideysatay oo 2011 ilaa 2012 ay ahayd dadaalo fara badan lagu jiray oo ay ku guuleysatay halka ay mataqaanaa ka gashay kaalinta afaraad dalka ay ka gashay 36 magaalo ee tartamayay dalka deegaankan ay kaalinta koowaad ka gashay halkaasoo aan ku guuleysanay in sanadkii hore 7 milyan oo cobblestone dhagaxan qoran aan tijaab ahaan lagu soo shubay kadibna aan dhagax qoran oo wada aad muhiim ah oo halbowle aan u dhisnay haddana 2013 ka loo soo daayay ama aan ku guuleysanay performance-gii markii la sameeyay dabagalkii federaalka iyo mataqaanaa muxuu ahaa deeq-bixiyaasha markay yimaadeen dabagalkii aan ku guuleysanay 40 milyan oo magaalada wax badan ka bedeli doonto insha Allah haddana lagu gudo jiro lacagteedina la soo shubay mashaariicdiina hadda lagu gudo jiro la bixiyo isla markaana ka bedeli doona mashruucaasi aan aaminsanahay wax badan in magaalada ka qaban doono tusaale ahaan haddaan soo qaadano deegaanka waxaa mashruucaasi ka hirgeli jiray jijiga isbedel fara badan ayuu ku sameeyay sanadii hore uu ka jiray oo dhanka wadooyinka bilicda magaalada marka isbedelkii hadda intuu yimid waxaa hadda ku guuleystay oo soo mataqaanaa ku soo biiray deegaanka 3 magaalo oo ugu horeyso Dhagaxbuur Qabdahar iyo Guday marka waxaan qabnaa inay magaalada Dhagaxbuur ay wax badan ka qaban doonto mashruucaasi wax badan ka qaban doono mashruucaha waaweyn ee magaaladu fulinaysa haddaan idinta taabto waxaa ka mid ah bridge 2 bridge waaweyn oo magaalada meelihii kala go'naa isku xiri doono oo aad u waaweyn oo midi uu yahay xaafadaha magaalada bartanka magaalada 4 magaalo oo 4 xaafadood oo magaalada dhanka markuu roob yimaado u kala xirmi jiray iyo xakan oo bridge muhiim ah loo sameeyay oo isagoo dhameystirmo hadda la adeegsado oo bulshada adeegsato iyo ku hadda socda oo isaguna isku xiri doono koobaad ilaa 7 oo muddo muhiim ah aan u aragnay inay mataqaanaa wax badan ay ka bedeli doonto isku socodka iyo bulshada adeegsiga magaalada ama adeegsiga kabayaasha dhaqaalaha waxa halban iska bedeli doonaan wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dhagax dhigay suuq ganacsi oo laga hirgelinayo maamulka magaalada Wajaale kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan ganacsatada magaalada Wajaale warkan aanu ka helay wakaalada warbaahinta deegaanka Soomaalida aanu talowno wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida maayirka maamulka magaalada Wajaale xubno ka socda hay'adda mashruucan fulinaysa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Bashiir Shaafi oo mashruuca dhagax dhigani ka hadlay ayaa sheegay in mashruucan uu wax weyn ka tiri doono dhanka horumarinta ganacsiga maamulka magaalada Wajaale maadaama sida uu sheegay ee magaalada Wajaale ay tahay magaalo xuduudeed ee isaga kala gooshaan bulsho badan deegaankeena wixii ka horeeyay isbedelka ka hor ma aysan jirin in laga fikiro ama ka xukuumadahan ama ka hay'adahan lala kaashado oo laga wada hadlo in ganacsatada waliba ganacsatada hoose ee ka ganacsata waxyaabaha muhiimka ah ee aan iyagu lahayn capacity badan oo ay wax ku dhisaan lahayn ee ganacsatada hooyooyinka noocan oo kale ta in shed ama loo dhiso meelo market loo dhiso ma ayna jirin hadda ka hor run ahaantii ayaan dhowr jeer baan ka wada hadalay oonu jijigo isugu nimidnay oonu suuqan iyo doorkay ka geysta ka wada hadalay khayr badan allah siiyo annaguna waxaan u ballan qaadaynaa ka xukuumad ahaan inaannu garab istaagayno suuqan maanta la dhisayaay een maanta dhagax dhigaynay waxa uu noqon doonaa suuqii ugu horreeyay noociisoo kale laga dhiso waa market aad u fiican dad badanna qaadi doona waxa uu leeyahay adeegyadii oo dhammaystiran
maayarka maamulka magaalada Tugujaale oo asna dhankiisa ka hadlayay munaasabadan ayaa sheegay in baahin weyn loo qabay mashruucan isla markaasina waxa uu sheegay inuu wax weyn ka tiri doono dhanka horumarka ganacsiga ee magaalada Wajaale. waxaa runtii sharaf noo ah inaan maanta daafurayno mashruucan oo wax weyn ka qabanaya baahida haweenka kala duwan ee maamulka magaalada Tugujaale oo runtii baahi weyn u qabay inay helaan u oomanaa inay helaan mashruuc noocan oo kale ah. waxaan leenahay cid alla ciddii soo qaban qaabisay iyo mashruucan Trade Africa Market oo runtii ah mashruuca cidda fulinaysay oo xidhiidh badan iyo dadaal badan oo ay mas-uuliyiinta maamulka magaalada Tugujaale ay la sameeyeen hirgelisay inay maanta la dhagax dhigo. markaa farxad bay noo tahay waxayna wax ka qabanaysaa waan ogeyn hadda meeshan waa meel suuqa isla markaana xuduudii ah taas oo aan isleenahay wax weyn bay ka qaban doontaa haddii la haydhaa marka la hirgeliyo. saa daraaddeed intaasoo dumaroo maanta ka faa'iidaysanaysa awal horena cadceedda iyo dabayshaa fadhiday oo loo dhisayo guryahaasi maanta maalin aad iyo aad u weyn qaali noo ah isla markaana wax weyn noo qabanaysa noo tahay. suuqani ganacsi ee maanta la dhagax dhigay ayaa waxaa iska kaashanaya hay-adda UKAID iyo midowda Yurub waxaana fulinaysa hay-adda Aviaco oo ah hay-ad ka howlgasha gudaha deegaanka waxaana ku baxaysa lacag gaaraysa 4 milyan oo bir iyadoo la filayo inay ka faa'iideystaan 100 ruux oo isugu jira ganacsato kala duwan. faa'iidada koowaad waxa weeyaan in loo sameeyay wax la yiraahdo safe trade marka la leeyahay waxay caawinaysaa haweenkii qorraxda istaagayay ee caanahoodii ay dhib ku soo gaadhayay. waxaa kaloo macnaha ay tani caawinaysaa oo mashruucani qayb ka yahay in loogu daray dhismahan meel ay haweenku ku tukadaan oo awal hore aad loo ignore garayn jiray oo aad loo danayn jirin. waxaa kaloo kolley dhismahan lagu daray meel ay hooyadu marka ay rabto ilmaheeda inay jaqsiiso naaska meel iyadana private u ah keligeed iyo intii jaqsiinaysa ay galayaan baa iyadana loogu daray. waxaa kaloo u faa'iido u tahay marka laga hadlayo mashruucan marka qaybtan aan ka hadlayo safe trade marka aan leeyahay waxay kaloo faa'iido u tahay marxaladan lagu jiro oo hadda ah COVID-19 bay iyadana jawaab celin u tahay oo ah in haweenkii meesha loo dhisay ay noqonayso meel ay social distancing ilaalinayaan kala fogaanayaan iyadana waa meel loogu diyaariyay. qaybta labaad ee kale ee mashruucani uu yeelan doono waxaa weeyaan waxa loo yaqaano post harvest loss control oo loogu talagalay tayadii waxyaabahan ay ka ganacsanayaan laftigeeda nafaqadii marka la yidhaaho in laftigeeda la ilaaliyo. ganacsatada yaryar ee ka shaqaysata maamulka magaalada Wajaale ayaa si weyn u soo dhaweeyay suuqani maanta la dhagax dhigay waxaana sheegeen in faa'iido weyn oo suuqani u leeyahay marka loo eego dhanka ganacsigooda. wuxuu soo kordhin karaa halka meel la dhigo dee maanta waxaasi noogu dayac baxo dee faa'iidu keenayaa kolka cadeeddaa disha way naga kala baxaan way naga dhanaanaadaan way naga baqaan dhibtoodu way badan tahay. wuxuu soo kordhin karaa alxamdulilah nimco aad u badan marka dadkaasoo dhan laga xireeyo bacadka ee hoy la noo dhiso kow caanaha way noo hagaagayaan qudaartoo kale hilibka oo kale wax kasta oo la dhigaaba alxamdulilah weeyaan mashruuc aad u ballaaran weeyaan waana ku qanacsanahay dawladda iyo hay-adaba hambalyaan u diraynaa. haatanna wararka caalamka madaxweynaha Soomaaliya ayaa saxeexay sharciga muddadiisa madaxtinimo dheereynaya. waxaa jirtay in baarlamaanka dalkaasi Soomaaliya uu cod aqlabiyad leh oo dhan 149 taageero ah 3 ka aamusid ah iyo 1 diidma uu ku ansixiyay muddada madaxweyne Maxamed Farmaajo xilkiisa loogu dheereynayo muddo 2 sano. waxaa go'aankaasi ka soo horjeestay hogaaminta sanadka Soomaaliya iyo mucaaradka. dhinaca dawladaha reer galbeedkana waxaa ka soo yeedhaya codad diidma ah oo go'aankaasi ka soo horjeeda. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Antonio Blinken ayaa tilmaamay in go'aankaasi uu walaac ku abuuray waxaana uu muujiyay astaamo ka turjumaya in dalkaasi Soomaaliya lagu soo rogi karo cunaqabatayn. midowga Yurubna waxa ay go'aankani ku tilmaamay mid Soomaaliya kala qaybinaya sidoo kale dariskana deganaansho la'aan ka abuuri kara. warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ayaa muujinaysa in mujtamaca caalamku uuna haynin xogta dhabta ah ee dalka Soomaaliya.